Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibada kanaalka muuqaalka maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno qaabkan blog ku saari lahayn any website anaga aan rabno inaan blog saarno sida YouTube, Google iyo websites la midka ah. Marka ugu horeysa waxaan booqanaynaa any browser anaga aan isticmaalno. Hadda aan isku dayno inaan ku tijaabino Chrome. Kadib waxaan qoraynaa IP addresska internetkeen. Dabcan waad fahansantahay waxa laga wado 192.168.1.1 haddii aad soo daawatay muuqaaladii hore. Kadib waxaan dhihnaa enter. Kadib waxaa noo soo bixi doona login page oo noocan ah. Waxaan gelinaynaa password. kadib waxaan dooranaynaa meeshay ku qoran tahay internet. Optionskan waxaan ka dooranaynaa meeshay ku qoran tahay parental control. kadib waxaan dhihaynaa URL filter. qaybta hoose waxaad ugu jeedaa plus iyo new URL filter. calaamadda plus ka taabanayna waxaa ku soo bixi doona qayb oo wax lagu qori karo ama wax lagu koobiyen karo. any website anaga aan rabno inaan blog garayno waxaa bas ku dhihaynaa box company. hadda waxaan isku daynaynaa inaan blog garayno YouTube. waxaan qoraynaa youtube.com. waxaan soo qaadanaynaa linkiga www.youtube.com. control ayaa iska dhahna kadibna control c oo copy ah. kadib waxaan dhihaynaa paste. linkiga markaa paste ku dhahdid waxaad haystaa options badan. dad gaar ah inaad blog agsartid YouTube-ka ama dhammaan inta guriga ku isticmaasho internetka inaad blog agsartid. qaybtan hoose hadda waxaad u jeedaa dhammaan device-kan in guriga laga isticmaalo ama internetka isticmaalaan sida Swytel, Galaxy iyo my PC oo ah computerka anaga hadda ka isticmaalayno iyo dhammaan devices kale. waxaan ku dhaafeynaa by default-ga. qof walba guriga ka isticmaalo internet ma awoodi doono YouTube-ka inuu isticmaalo haddii aan safe dhahno. hadda haddii aan isku dayno YouTube-ka inaan video ka daawano still weli waa daawan karnaa sababtoo ah refresh malihin ama reboot. si uu u qaato blogga marka ugu horeysa waxaan ku laabanaynaa internetkeena. kadib waxaan dhihaynaa maintain. kadib waxaan dooranaynaa device management. kadib waxaan dhihaynaa reboot. okay. waxaan fiirinaynaa processka rebooting inuu dhamaaday iyo in kale. internetka hadda disconnected waaye. waxaan isku daynaynaa inaan connected aan rahno kadibna aan fiirino YouTube inuu shaqeynayo in kale. si aan u ogaano YouTube-keen inuu shaqeynayo in kale waxaan dhihinaa refresh. kadib waxaan isku daynaynaa videoga inaan dib u daawano. hadda haddii aan isku dayno YouTube inaan muuqaal ka daawano ma awoodi doono inaan daawano. wuxuu dhihi doonaa this site can't be reached ama IP address could not be found. laakiin haddii aan isku dayno Google-ka inaan su'aal weydiino waxyaabahaas wuu shaqeyn doonaa. google.com Somalia enter. hadda waxaad u jeedaa inuu shaqeynayo Google-ka laakiin YouTube-ka ma awood inuu sii shaqeeyo. wuxuu dhihi doonaa this site can't be reached ama IP address could not be found. keliya waxaa blog la saari doonaa linkiga website adiga blog garaysay laakiin inta kale way ku shaqeyn doonaan. si aan blog ugu soo qaadno waxaan ku laabanaynaa internetkeen. kadib waxaan dhihaynaa internet. kadib waxaan dooranaynaa parental control URL filter. kadib si aan blog ugu qaadno waxaan dhihaynaa delete. kadibna okay. hadda haddii aan isku dayno YouTube-ka inuu shaqeynayo in kale waxaan ka qaadnay blog. kadib waxaan dhihaynaa refresh. hadda waxaad u jeedaa YouTube-kaaga inuu ku shaqeynayo. muhiimadda iyo ujeedkaan uga hadlayo tahanaa internetka waxay tahay qof walba internet guriga u yaalo inuu yeesho controlkiis iyo awoodiis asiga wax badan uu ka bedelo dhanka security-giisa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaaga asxaabtaada. ha ka ilaawin muuqaalka inaad like sarto sidoo kale janaalkan aad subscribe garayso.